الله naxariistay qarax nooca gawaarida lagu dhajiyay ee duurnimadii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayuu ku geeriyooday Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda aadka loo jeclaa qaraxa oo ku dhintay sheekha ayaa ka dhacay isgooska Somali Star ee xaafadda Calaley qaraxa ayaa sidoo kale waxa ku geeriyooday ruux kale oo la socda sheekha halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dadka Soomaaliyeed ayaa markii ay maqleen in Sheekh Cabdinaasir uu ku geeriyooday qaraxa Kismaayo ka dhacay waxay ka dhidhiyeen falkii lagu dilay sheekha maadaama deegaanada Soomaalida uu u tagi jiray fidinta diinta Islaamka iyo ku baraarujinta bulshada samaha wanaagsan marxuumka ayaa mar uu ka hadlayay dadka isqarxiyo waxa uu yiri dadka isqarxinaya oranaya shahaada ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay ninkaas waa qaatil nafsihi qofkii isqarxiyay waa qof naftiisa dilay arrintaasna wax banaan ma waa xaraan ilaahayna subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiima warnaftina hadina buu Allah subhanahu wa ta'ala wala tulqu bi aydiikum ila tahluka naftina halaga ku ridina marka hadaf kasta lahaada niyadeedu waa wacan tahay ficil kala sameynaysa ka xog badan ficil dil ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xarimay qofku qeyrkii inuu dilo oo muslim ah iyo wixii kale gaale macsuum ah iyo naftiisa inuu dilo intaba isku mid bay noqonayaan wax banaan maaha waxa way arintaasi waa xaraan waliba waxa dhacaysa intuu isqarxiyo inuu dad badan oo muslimiin ah oo laga yaabo in markaa masaajid ku jiraan ama masaajid ka soo baxeen ama sooman yihiin ama afura sugayaan inuu isku qarxiyo oo intaasoo dambi wax baarto dadka qaar ayaa tilmaamay in muddo dheer uu helayay Sheekh Cabdinaasir hanjabaado uga imaanaya dhanka al-shabaab balse dacwadda iyo fidinta diinta Islaamka kama reebin hanjabaadahaas Soomaaliland markii ay laascaanood ka soo barakaysay dadka Soomaaliyeed ee koonfurta ka soo jeeda waxa uu ahaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed dadka sida weyn uga dhiidhiyay arintaas maadaama uu magaaladaasi ka soo jeeday waxa labadan maalmood u dambeeyay magaalada laascaanood ka socda barakicin iyo qafaal aad u foolxun oo si qaab darro u socda oo ku wajahan dadka ka soo jeeda gobolada Baa iyo Bakool oo runtii si aan inaba caadi ahayn arintaas ay u dhacayso waxaan leenahay dadkaasi waa dad islaam ah dadkaasi waa dad Soomaaliyeed waxay joogaan magaalada Soomaaliyeed waxay deganaayeen taqriiban qaarkood 30 sano ku dhawaad magaalada degayiin oo ku imadhaleen ganacsi bay ka furteen ganacsigooda leesankiiba u goosteen cashuurtii baa laga qaadaa qaarkood waa dadka guryaha waaweyn dhiso waxay dhisayaan oo dhismaha magaalada laga dhisay weeye dadkaasi magaalada in badan bay joogeen waxa ka dhacay meesha tan wax aad iyo aad looga xumaado magaaladu waxay leedahay culimay leedahay magaaladu waxay leedahay dad madax dhaqameed ah ismo iyo uqaal garbood aqoon-yahano dadkaas oo dhan intan ka warqabo wax tala ah oo mawduucan laga weydiin ma jirto maamulka ayaa go'aan ka qaatay oo hawsha ku talaabsaday horay kooxaha hubeysan ayaa wixii u dileen Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax oo saaxiibo ay ahaayeen Sheekh Cabdinaasir oo maanta la dilay saaxiibadiisii horay Sheekh Axmed iyo Sheekh Cabduqaadir midna waxa la dilay isaga oo sooman oo salaad subax ka soo baxay halka kan kalena la dilay isaga oo sujuudsan salaada casr maantana Sheekh Cabdinaasir isaga oo safar diin u jooga Kismaayo masaajidna ka soo baxay la dilay inta badan madaxda Soomaalida ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed waxaana siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay tacsida la wadaageen ehelada marxuumka Allah u naxariistay qarax nooca gawaarida lagu dhajiyay ee duurnimadii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayuu ku geeriyooday Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda aadka loo jeclaa qaraxa oo ku dhintay sheekha ayaa ka dhacay isgooska Somali Star ee xaafadda Calaley qaraxa ayaa sidoo kale waxa ku geeriyooday ruux kale oo la socda sheekha halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dadka Soomaaliyeed ayaa markii ay maqleen in Sheekh Cabdinaasir uu ku geeriyooday qaraxa Kismaayo ka dhacay waxay ka dhidhiyeen falkii lagu dilay sheekha maadaama deegaanada Soomaalida uu u tagi jiray fidinta diinta Islaamka iyo ku baraarujinta bulshada samaha wanaagsan marxuumka ayaa mar uu ka hadlayay dadka isqarxiyo waxa uu yiri dadka isqarxinaya oranaya shahaada ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay ninkaas waa qaatil nafsihi qofkii isqarxiyay waa qof naftiisa dilay arrintaasna wax banaan ma waa xaraan ilaahayna subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiima
war naftiina hadiina buu Allah subhanahu wa ta'ala wala tulqu bi aydiikum ila tahluka naftiina halaaga ku ridina marka hadaf kasta lahaada niyadeedu waa wacan tahay ficil kala samaynaysa ka xoog badan ficil dil ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xarimay qofku qayrkii inuu dilo oo muslim ah iyo wixii kale gaalay macsuum ah iyo naftiisa inuu dilo intaba isku mid bay noqonayaan wax banaan ma waxa way arintaasi waa xaraan waliba waxa dhacaysa intuu isqarxiyo inuu dad badan oo muslimiin ah oo laga yaabo in markaa masaajid ku jiraan masaajid ka soo baxeen ama sooman yihiin ama afura sugayaan inuu isku qarxiyo oo intaasoo dambi wax baarto dadka qaar ayaa tilmaamay in muddo dheer uu helayay Sheekh Cabdinaasir hanjabaade uga imaanaya dhanka al-shabaab balse dacwadda iyo fidinta diinta islaamka kama reebin hanjabaadahaas Soomaaliland markii ay laascaanood ka soo barkacay dadka Soomaaliyeed ee koonfurta ka soo jeeda waxa uu ahaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed dadka sida weyn uga dhiidhiyay arintaas maadaama uu magaaladaasi ka soo jeeday waxa labadan maalmood u dambeeyay magaalada laascaanood ka socda barakicin iyo qafaal aad u foolxun oo si qaab darro u socda oo ku wajahan dadka ka soo jeeda gobolada Baa iyo Bakool oo runtii si aan inaba caadi ahayn arintaas ay u dhacayso waxaan leenahay dadkaasi waa dad islaam ah dadkaasi waa dad Soomaaliyeed waxay joogaan magaalada Soomaaliyeed waxay deganaayeen taqriiban qaarkood 30 sano ku dhawaad magaalada degayiin oo ku imadhaleen ganacsi bay ka furteen ganacsigooda leesankiiba u goosteen cashuurtii baa laga qaadaa qaarkood waa dadka guryaha waaweyn dhiso waxay dhisayaan oo dhismaha magaalada raga dhisay weeye dadkaasi magaalada in badan bay joogeen waxa ka dhacay meesha tan wax aad iyo aad looga xumaado magaaladu waxay leedahay culimay leedahay magaaladu waxay leedahay dad madax dhaqameed ah ismo iyo uqaal garbood aqoon-yahano dadkaas oo dhan intaan ka warqabo wax tala ah oo mawduucan laga weydiin ma jirto maamulka ayaa go'aan ka qaatay oo hawsha ku talaabsaday horay kooxaha hubeysan ayaa wixii u dileen Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax oo saaxiibo ay ahaayeen Sheekh Cabdinaasir oo maanta la dilay saaxiibadiisii horay Sheekh Axmed iyo Sheekh Cabduqaadir midna waxa la dilay isaga oo sooman oo salaad subax ka soo baxay halka kan kalena la dilay isaga oo sujuudsan salaada casr maantana Sheekh Cabdinaasir isaga oo safar diin u jooga Kismaayo masaajidna ka soo baxay la dilay inta badan madaxda Soomaalida ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed waxaana siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay tacsida la wadaageen ehelada marxuumka